subaxyadan soo yeedhaya ama aan u fadhinaa subaxan saaka hadalkii ka soo yeedhay wasiirka daakhiliga iyo goortida hargeysa joogta sidii haddii aan ku maqlaynay xalay ama shalayba hadal ee ku saabsanaa sayla ma dhammaan buu yidhi arrintii sayla ma dhammaan buu wasiirku goortii baan u dirayaa buu goortii horey noogu timiday booramay timiday wasiiraa la socday madaxweyne ku-xigeenka la socday waan ka jawaabnay maya baan nidhi wixii haddii halkaa la nagu weydiiyey maya waxaa lagu kala helay bay ahayd arrintaas sayla doorashadii sharci weeyaan sharcigaana annagu ma jebinayno ciddii jebinaysaad iyada cirka roobka ugbana waxaan leenahay ilaa maantana waxaa la leeyahay ma dhammaan weli sayla gobolladii kale oo dhanna way shaqeeyaan awdal iyo selen ma dastuurka iyo doorashadii bayna ku jirin oo waa haddii la Somaliland gooniya miyaa waxaan leenahay annagu Somaliland baan u haysannay in dastuurku ka wada dhexeeyaan u haysannay inay arrintaasi dhammaataan u haysannay ninkii diiday isagaa diiday laakiin annagu sidii doorashadii loogu kala helay baan ku joognaa halkaa waxaan leenahay ciddii maanta soo laba kaclaysay waa cid abuuraysa dagaal ka dhaca Somaliland iyo Somalilandoo tafaraaraq iyo talxuma lagu rido waxaan leenahay taaha laga daayo waxaan leenahay anugu haddii aan suldaanbaadaha ahay arrinta noocaasi waa mid Somaliland wax yeelaysa waxaa la leeyahay galdihii muxuu ahaa Ethiopia joogay ee ugaaska ciise ayaa loo yeedhayaa guurtida iyo haddii la gadaasa ku wada galaya shir sayla ama selen waxaan leenahay dee ugaaska iyaguna galduu leeyahay oo wuxuu joogaa jigjiga kaasina ha yimaado gandihiisii isagoo wato sayla ha yimaado dee kaasina sayla ha yimaado waa dee Ethiopia laga soo gurayo kuwa gada bursigana ha laga soo guro halkaa ha yimaadaan halkaa lagu galo wixii ciise gada bursiga ku galayaan laakiin qoladan haddii la idhaahdo abuuraysa dagaalka haddii la idhaahdo ka dhanka ah awdal iyo sel ha ka daayaan baan leenahay waxaan ku darayaa arrintaa iyada wuxuu yidhi laba ninoo arrin isku qabatay wuxuu yidhi shaydaanow xaawo maadaa rimiyey ama haddii la idhaahdo xaali maadaa rimiyey xaaligay ma shaydaan baa ku rimiyey haddii shaydaanow xaawo aad rimisay xaawayna shaydaan ku rimiyey waxa weeyaan nabadgelyadii farahay ka baxday ciddii abuurtayna iyadaa og shaydaankaa xaali rimiyey oo waxaan leenahay kadaa baan leenahay anugu intaasaan ku soo koobayaa kuna dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan ugu talagalnay halkan shirkan jaraa'idda aan ku qabanano hoteelkan haldoor ee boorama ku yaalla waxaan ugu talagalnay inaanu kaga jawaabno hadalkii shalay uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha guduhu markii uu la hadlayey golaha guurtida warbixintii golaha guurtida uu sinay waxaan leenahay hadalkaa wasiirka arrimaha guduhu shalay sheegay waxa uu dhaliyey xasaasiyad buu ka dhaliyey gobollada awdal iyo selen dadkii buu kiciyey arrin dhammaaday oo arrimihii saylaxa ayuu dib u aloosay wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ku shaqo lahaa nabadgelyada inuu nabadgelyadii ka hadlo iyo halkay marayso ayay ahayd inuu maanta yidhaahdo Somaliland Ethiopia lagaga soo duulo oo diri dhaba gandaha fadhiya ee Ethiopia ka tirsan ha ka taliya arrinka sayla ayuu ku dhawaaqay waxaanu leenahay waa mid aad iyo aad loola yaabo ummadii oo dhan ay la yaabanta shalay bay ahayd wasiirka arrimaha guduhu markuu arrinkii sayla ee sayla lagu xallin lahaa uu ka doonay Jabuuti maantana wuxuu ku xigsiiyey diri dhaba laga doono halkeeda laga keeno waxaanu leenahay arrinkaasi ma qabato Somaliland meel ka dhac iyo sharaf darro ayay ku tahay inuu wasiirkeedii arrimaha guduhu uu dowlada shisheeye uu ogolaaday inay soo farageliyaan arrimaha Soomaaliya iyo arrimaha sayla waxaanu leenahay arrinkaasi waa arrin foolxumaa ku ah qaranka wasiirka arrimaha guduhu nabadgelyadii dalka laga dayrinaya inuu ka hadle inuu taa ku dheeraade
arrimaha saylac waa arrimo distooriya oo ay ka dhaceen doorashooyin ilaa imiga waxbaan dhammaynay buu yidhaa way dhammaatay 7 nine waan keenayaa uu yidhi weli ma jooga taaseed inuu ku dadaalo wax ka qabto annagu marnaba uma dul qaadanano mana ogolaanano arrimaha saylac dadkii u dhashaan nahay dadkii madaxdoodii baan nahay intaa iyo intaa ixtiraam baanu ixtiraamana xukuumadda iyo waftigii loo diray maantase wixii ka dambeeya arrimaha saylac baa iska leh dadka ku nool saylac ee beelaha saylac degan baa iska leh iyagaa ka tashanaya uma baahnin in la yidhaahdo waddamo shisheeyaha inay soo farageliyaan oo loo ogolaado ma ogolin taladu dadka ay ka dhacayso ayay u taallaa waana arrin distooriya waxba kagama duwana gobollada kale iyo degmooyinka kale somalilan maxay kaga duwan tahay duur muxuu bariga uga hadli waayey degmooyinkii bariga annagu waxaan leenahay maanta hadduu saylac u ogolaaday in etoobiya ka tirsan iyo jabuuti soolna boosaasaa loogu tago oo bari iyo garowa loola socdo taasaan leenahay hadduu taa ogolaado waa in soolna taladeeda garowa laga doono sidaa weeyi waxa weeyaan marnaba ma ogolaanano arrinkaasi waxa uu dhaliyay xasaasiyad ayuu dhaliyey marnaba annagu waanu diidanay mana ogolaano waxaana leenahay arrinkaasi waa in sida uga dhaqsaha badan uga noqdaa wasiirka arrimaha guud xukuumaddana waan kula talinana in arrimaha saylac ee la fogeynayo halkeeda loo daayo oo wixii distooriya laga qabanaya laga qabto intaasaan kusoo gabagabeynaya waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sida degdegaan iskugu nimidnay waxaa keenay arrintaa muddada dheer socota ee doorashooyinkii ka dhacay somalilan ee golaha deegaanka ahayd ee sidii loo kala helay la ogaa oo runtii hadda sawir kala qaadatay oon u arkayna iminka haddaan nahay gobollada galbeedka somalilan doorashada waxaa loo qabanayaba inay ahayd in gobollada galbeedka somalilan khalkhal loo geliyo siiba saylac oo noqotay wax joogto ah oo madashii la yimaadii meesha arkaba laga hadlayo oo la xusi kari laayahay dastuurka somalilan iyo nidaamka dalka midna la xusi kari laayay laguna salayn kari laayay waxaana soo kiciyay maanta annagoo og dhibaatadii ka gaadhay ummadda dhibashadii ka dhacday wixii annagoo og maanta in mar labaad lagu dhawaaqo wasiirka arrimaha gudaha ee nabadgelyada qaabilsana ku dhawaaqo golihii guurta dhexdeeda kaga dhawaaqo waa hay'adii dalka ugu sarreeyay kaga dhex dhawaaqo annagoo la yaabaneen marka hore xukuumadda somalilan dalka sohodimihiisa annagoo garanayna in ay masayrka soomaaliya talada somalilan jabuuti doonta annagoo la yaaban oo arrintaasi aan ku dhakafaarsannahay maanta mar labaad la noogu celiyey in maantana loo doonayo etoobiya taladii magaalada saylac in loo doonayo etoobiya ay xukuumadda ku dhawaaqday arrintaa iyada arrin noo cuntamaysa maaha arrinaan sugayna maaha waxaan maanta u sheegaynaa haddaan nahay hogaamiyaashii dhaqanka arrintaas maanta halka laga dhawaaqayaa inayna ahay mid sibana aan loo aqbalay sibana loo aqbalay in ninkii lahaayoo ka maqan rag kale iskugu tegay ragaan lahayni iskugu tegay waa tii maalinta dhaweed ragaan lahayni inay ka taliyaan ay doonayeen tii baa socda cabdiwaraaba baa leeyahay war cabdiwaraaba meel buu leeyahay cabdiwaraaba meel buu leeyahay guurta meesha meel buu leeyahay wasiirkii ka hadlayaa meel buu leeyahay ha ku eegaadaan halkooga ha ka taliyaan halkooga waxay nii sheegaynaa waxaan dhammaan u sheegayaa dadka in loo diyaargaloobo dhulkiina inaad u diyaargadoo ilaashataan xukuumadda aad ku ogeydeen inuu wax ka soo baxeen warkeegu uu cad yahay waxaan inii sheegayaa in dhammaan saqiir ilaa kibir nin kastaa meesha uu joogo carrigaaga aad ilaashataan inii sheegayaa maanta waxaan u sheegayaa ragga u bu-ayo nin wallow halkaad joogta ka tasho ku martiqaad waxaan nii sheegayaa maanta laga bilaabo hadday sidan u socoto inaan diyaar u nahay halkay joogta inaan tagno
halkay joogtay inay tagnaan maanta diyaar u nahay dibna la isku weydiin maayo nimaan soo hoynayna soofin maayo haddii nimaan soo hoynayna soofin maayo waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland ee madaxweynuhu hogaaminayo ee madaxweyne xogeen ku jiro ee nimanka golayaasha sheegta ku jiraan halkeega ha loo daayo haddii loo dayn waayo waxa weeye ninkii ka kiciyay baa ka kiciyay ninkii ka kiciyay ayaa ka kiciyay waxa weeyaan cabdi waraabe imashadii horu boorama ay yimaadeen baqalad hay waxay wadeen tasaylacna maanta way ka daraan waxaan uga degaynaa beelahan walaalahanay ee reer Sheekh Saxaaq ragooga faduusha wada ee cabdi waraabe kow ka yahay qabsadaan reer walba waxaan suldaan walba waxaan u sheegaynaa isim walba waxaan u sheegaynaa gardarrada soo noqnoqonaysa ninku meesha lahayn mar walba ka talinayo inay qabsadaan ma u sheegaynaa in looga digaan u sheegaynaa waxa digniin weey waa baaq weey waxaan ku soo gabagabeynaa hadalka ma ogolin Itoobiya dad laga keeno ma ogolin dad meel kale laga keeno ma ogolin kaageysa jooga meel inuu ka taliyo ma ogolin kiilaha ka talin doona kiilaha tagi doona kiilaha cidii wax ka tabanaysaana diyaar bay yihiin aad iyo aad baan uga xunnahay in muddo dhowr bilooduhu arrin waa heer qaran la yidhi in lagu soo noqnoqdo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan uga digaynaa inaana guurta 11 wasiirka arrimaha guduhu sheegay ee reerka halkay leeyihiin bay ku marti qaadayaan bay leeyihiin maanta horena waa sheegnay halkay leeyihiin bay ku marti qaaday halkay leeyihiin bay kula shiri halkaa wixii ka yimaadaa cidda geysay ayaa leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين ماشي سايس. وزير كريم أقول أرض مركورة وحنا وقدي نعيد وزير كريم أقول هاي إثيوبيا هاي صومالي دا حمر تايبان خلقر الله هاي تمو ما هوت. ويهدوي هاي نبتقري يدو دوري لها. وحكنا له شيء إن مدحوينا هالضلك. ساعة جيسها وين اللي واحد اللي لو ظهرك ومدايو. يستقون كجماعة هرو. وكل لو طريرته وكتب بحون. مرة واحد لنا مدحوينا هديات كدين ويدين تنصادوا وطن. إنه كنا وقت كسب بحيسان قريها هاللو دا يضل خطط كيرها هاي كتري لي تذكر إثيوبيا لغمت هاليو سومالي لاربع لغات هاليا وحالو كدقة إنه بيرها ولا لها النهاي سلا سلطان كي هربي إلى الله هدلان ما لحدود فريدة ضلك كله بيرها كله وطالي ليس ما لح قروي دافع كل كون ما هو بيرو ما لحدود وهالله هذا شو ما لحد قمة تقول وهالله هذا حديث الذي وحن أمرنا ضد كان مسؤول كذناي إلى استفاعنا الدونان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بصناين سيد الدولة وضوح الربا سيلع أفكا يجرا كحدناي وذا جرى ما تكهر كلها دقة كأوضرية السلل هنا وذا جرى وهذا ما تكهر وحوجود بيجي وسير كربا جوده هذا الكيسي هذا الكارا لو يري ولا دبيجي أروح الله هاي هلا كلا دايو جعيلك يجري تاك سوبالي لا جعيلك جبوتي لا قلايو أي وسيرة لا قلايان أي الربا السيلع كجا هذليان أي تري دبل لا قلايان أي الربا السيلع كجا هذليان أروح الله يجري تاك سوبالي لا يجعيل هلا كلا دايو نكى نجعلي سيدي كلو جعلي هاي وحي كلو قبريو ده سجى جرتاه أنا أروح الله هاي وعكو سو كوبيا ما أقولين إن ماركتي مر والبا ضدك حمستا إيه سيلع إيه حريرة إيه حيبها دقن إيه أود الشيء إن مر والبا شرر حارانة أو لو عبورين إيه إن لو دول قبتوا قولان منه ما أقولين لبا بيرادو إسحايستا أو لو قربدو أو قرتدو قربتو ورك جري قرت فدما وضع ما أنا نرك وسير الربا جودا أما أردت كذا كمسؤولة أو فدما هورية ما أنا نرك ما تفضل كهور سومالي لا حاجة وسعته قرن بينه حاجة الله هذا قرن بينه وحلا رعناه وهلا كلا داية جعيل كيو جريتك سومالي لأن السلام عليكم ورحمة الله منطقة أمن كنا هل كا وحوي أنا جو حب إنه فرندنا عايتوبيا وأمن نوعه وحنو شيء إن الدولة كل كتجان كسومالي لا iyo dawladda dhexe Itoobiya ba waxba laga wadaa halka wixii saylac ka dhaca wax kala soo gali doona tagaan haduu halka ka bilaabno wax kala soo gali doona waxa weeyaan kolka la leeyahay dawladdu way dhameysay saylac laakiin nimanka hargeysa iyo kuwa maaragta dir dhaba ku shiraan
meeshaa waxbaa laga wadaa daarunad waa laga dhigayaa ma ogolin intaan hore u dul qaadanay in ma sii wadi karna hadda kadib wasalaamu calaykum waraxmatullahi dowladda etoobiyana ha ogaata halkaa waxaa laga wado ha joojisata dadkeeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhaqdhaqaajin dastuur iyo waxyaabo la sheegayo waa la furaya dastuurkana waaba loo codeeyaa dee laleeyahay waxa loo furaya waxay tahay aan u malaynayaa gobollada galbeedka iyo degmada saylac in loo furayaan u malaynayaa waxaan intaa ku darayaa lama odhan wasiirku ma odhanin waxaan ku wada hadashiinaysaa guurtidu beelihii degaanka wada deganaa ayay ku wada hadashiinaysaa kuma darin wuxuu ku daray in gendaha diridhabe iyo guurtida oo keliya meesha dee ku shirayaan dee waxaan u malaynayaa inay la mid tahay uun korneel cismaan gaabo xeebta la geeyo bilaabay uun heshiisiin ogaadeenaya ciise un bilaabay inuu la mid yihiin baan u malaynayaa dee saylac dad baa wada dega dadka wada dega ciddii ku heshiisiinaysaa ku heshiisiiso hadday is haystaan wey marna dawlad baynu nahay marna beelo darisaynu nahay marna dawlad baynu nahay marna beelo darisaynu nahay labada waa in mid un la ilaaliyo dee in la isku dara maaha waxaan intaa raacinayaa oo keliya nin dalleensan inuu duufayay doqontu moodaayo cirku u daruuraynayaa goorudi iyaa og kuwaan ii dardaar warinayo darajada iyaa og wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu